رمضان ونكسن كسر وتحنا سما رمضان وأنا قلت لك الله إن أدخل وداقنه سماها بيش بركة سنة رمضان وأنا قلت درس حسين دونا أنت لو قلت شو بيش بركة سنة رمضان وحنا هاي عبد العزيز ميجاك قيبتنا ما تروح نقصه قادم دونا فإذا أي تمرت أقول لي هاي قفك صومن يقودهان عافيمات كاينون لي هاي وحكينا نقول دونا سيدا دينتين ونقول ديري جلسي تمرتين نقول فرنا تمرتا أي كم إذا مدها وقوع عنصن إلا عنو حلقة رمضان تا waxayna ka mid tahay cuntooyinka ugu wanaagsan ee ku haboon caloosha maran si aan ku soo xignay dhakhaatiir iyo cilmi baarisyo dhowr ah oo la sameeyay faa'iidooyinka ay timirtu u leedahay qofka sooman waxaa ka mid ah timirtu waxay xoojisaa guud ahaan jirka qofka sooman gaar ahaan murqaha taasoo qofka ka caawinaysa inuu qabto hawlo badan oo kala duwan isagoo dareemin wax daala saacadaha badan aynu soomanahay kadib waxaynu u baahannahay cunto si dabiici ah kor u qaada heerka sokorta jirkeena timirtuna waa il dabiici ah oo laga helo sokorta korna u qaada heerka sokorta jirkeena timirtu waxay yareysaa fursadaha uu qofku aragiisa ku daciifi karo waxayna ka mid tahay daawooyinka dabiiciga ah ee ugu da'da weyn ee lagula taliyo dadka aragoodu daciifo maadaama ay timirtu ka kooban tahay maadada fiberka iyo carbohydrates waxay kordhisaa dareenka dheregnaanta taasoo qofka sooman fursad u siinaysa inuu iska dhaafo cuntadii badneed ee uu qaadan lahaa dhanka kale faa'iidooyinka ay timirtu noo leedahay waxaa ka mid ah timirtu waxay yareysaa kasarka ku dhaca mindhicirada iyadoo ay tahay sababtu maadooyinka ku jira timirtu waxay ka qayb qaadataa caafimaadka lafaha waana isha laga helo maadada lafaha u fiican oo ay ku jiraan potassium calcium iyo magnesium wax kale oo ay laga helaa fitamiinada K oo muhiim u ah lafaha timirtu waxay noqon kartaa bedelka sokorta oo waliba caafimaad leh waxa kale oo ay wanaajisaa shaqada ay qabato maskaxdu haddii inta ku soo gubno faa'iidooyinka caafimaad ee timirtu noo leedahay maxay diinteenu na faraysaa sidees ay nagu dhiirigelinaysaa inaynu ku afurno timirta waxyaabaha lagu afuro qofka sooman waxyaabaha loo baahan yahay inuu ku afuro waxa ka mid ah timirta rutabka loo yaqaan haddii uusan helin timirta caadiga ah oo timirta hadda anaga haysana rutabka inta badan maba naqaanaba maba heli karnaba timirta caadiga ah timirtaas caadiga marka waxaa loo baahan yahay inay noqoto witri tres dheer witri macnaha waxaa waa tirada macnaha halka saddexda shanta toddobada sagaalka tirada isdheeraa la dhahaa macnaha witriga haddii uu macnaha timirtaas waayo waa in uu ku afuraa biyo waa inuu ku afuraa biyo idan marka timirta yaa macnaha afdal ah haddii aad weysidna biyaha timirta macnaha waxaa sii afdal badan rutabka haddii aad weysan timirta caadiga ah macnaha hubaal timirta ayaa muhiim inaad ku darto cuntada afurkaaga maadaama ay isugu jirto nafaqo iyo macaan